walaalayaal hala sabro hala dulqaato. innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab. addoon nicmo badan waaye, mid noqosho badan waaye buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. 3 baan u qaybinaynaa walaalayaal sabirka. midna diinta ilaahay ayaan ku sabraynaa. dhib bay nagu tahay xilligan inaan fadhino, xaqa laysku sheego, la dhagaysto, salaad loo istaago oo la tukado, qawowga xilligiisa inta la soo kaco la weyse qaato, saq dhexe dadka oo hurdaya inaad ka soo dhex baxdo oo aad weysaysato, ood salliga ku istaagto, ood qiblada qaabisho, dhaxanta iyo qabowga dhacaya, firaashka naacimka ah ee ku raba, sawjada dhinacaada jiifta aad ka soo kacdo ood ilaahay qaabisho. way adag tahay, laakiin sabir bay u baahan tahay. kow waa diinta inaan ku sabirno, waa sabirka koowaad aanu ka hadli doonno. daacada ilaahay inaan u sabirno, amarka ilaah fulintiisa inaan ku sabirno, waa diinta ilaahay oo lagu sabro. 2 macaasida inaynu ka sabirno. waan iska jeclaan lahayn xilligan meelaha kalaabyada inaan tagno. gabdho yaryar ayaa jira, gabdho yaryar oo meesha dhooban ayaa jira. waxaad doonta aad kula isticmaali karta, subxaana allah waciyaadu billaah. aad khamri ku cabi karto, laakiin nafti way jeceshahay, way rabtaa inay aada. waad xakamaynaysaa. waa macaasida ilaahay oo laga sabro subxaanahu wa tacaala. ta 3aadna masaa'ibta, jirooyinka, dhibaatada adduunka, aafada, dhimashada, waxyaabaha lamidka ahna inaan ku sabirno. alqadaa waalqadar, waxyaabaha ilaahay noo jaangooye subxaanahu wa tacaala. lee waa boqorkeenii, lee asagaa noogu talagalay, raalli baan ku noqonaynaa subxaana